wardegdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta cashir lama ilaawana waxay u dhigeen kooxda qawaarta ee al-shabaab waxaana deegaanka wargaadhi ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa oo jab lagu gaarsiiyay nabadiidka al-shabaab nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta cashir u dhigay kooxda nabadiidka ee al-shabaab iyadoo ciidanka qoryaha darandooriga u dhaca ay la dhaceen kooxdii soo weerartay deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe إن شاء الله إن شاء الله waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta cashir u dhigay kooxda qawaarta ee al-shabaab kadib markii nabadiidku isku dayeen in ay soo weeraraan deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka oo hayay xogta weerarka nabadiidku ay ku soo qaadeen deegaanka ayaa waxay si xeeladeysan uga hortageen kooxdii doonaysay inay soo weeraraan deegaankaasi waxayna sidoo kale ciidanku ay ku guuleysteen inay qaarajiyaan horjoogihii watay kooxda nabadiidka ee al-shabaab ay soo weerartay deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalku waa mid aad u culus ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii magaalada argagixisadu ay soo weerartay dib ay ciidamadu magaalada uga baxeen kadib waxa dhacday in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhowr jiha ay ka soo weeraraan magaalada halkaas oo lagu baabi'iyay kooxda qawaarta ee al-shabaab mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta halkaas dagaal adag kula galeen kooxda qawaarta ee al-shabaab saraakiishu sidoo kale waxay xaqiijiyeen in ilaa iyo 58 dagar qabo oo ka tirsan argixisada al-shabaab uu ku jiro horjoogihii dagaalka hogaaminayay barta lagu dilay sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay gubeen gawaari dagaal oo qaraxyo ah oo nabadiidku ku doonayeen inay ku soo weeraraan fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalku waa mid aad culus qaatayna ilaa dhowr saacadood soo gaaray ilaa maqribnimadii caawa ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay muddo 4 jeer ay jabiyeen kooxda qawaarta ee al-shabaab argagixisada ayaa muddo 4 jeer ku soo rogaal celisay bartii dagaalka ku soo qaadeen arintaasna waxay sabab u ahayd kadib 58 meedada oo nabadiidka halkaas ka yaalay argagixisada ayaa waxay isku dayeen inay soo weeraraan goobta lagu dagaalamay lagu laayay ciidanka si ay moodkooda u jiitaan balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si adag ugu hortagay kooxda nabadiidka al-shabaab ee soo weeraray deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe wargaadhi waxa ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe waana goobaha fariisimaha ugu weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waana talis ka mid ah talisyada ciidanka cirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku leeyahay deegaanka ama deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waana goob istiraatiiji ah oo laga difaaco dhowr degmo oo ku yaala gobolkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii ay weerarka argagixisadu soo qaadeen ay ciidanku waxay si xeeladeysan uga hortageen kooxdii doonaysay in ay deegaanka qabsadaan raacay ugu horeeyay ee ka tirsan kooxda qawaarta ee al-shabaab ay ciidamadu ku guuleysteen in goobta ay ku jabiyaan 30 daqiiqo kadib isla raacay labaad oo ka tirsan argagixisada ayaa jiha kale ka soo galay deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe xogtu ku helno waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raacay labaad ayaguna jab xoogan ay gaarsiiyeen goobtan ay ku laayeen muddo saacado kadibna waxaa soo rogaal raacay saddexaad oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee al-shabaab kuwaasoo dagaal adag la galay ciidanka xoogga dalka balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka feejigan dhagarta hayna xogta kooxda nabadiidka ah ee si feejigan ciidanku weerarka uga hortageen ilaa tira 4 jeer ay nabadiidku soo rogaal celiyeen waxayna min 4 raac ay ku soo aadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe argagixisada ayaa si xeeladeysan ku soo weeraray deegaankaasi balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaga oo ka feejigan xeeladeysiga nabadiidku waxay maanta u dhigeen cashir lama ilaawana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa maanta dagaalkii ugu cuslaa waxay la galeen kooxda nabadiidka al-shabaab wuxuu dagaalku ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa haatan ay la hadlayo ciidanku waxay ku siraad joogaan raacdada kooxdii soo weerartay deegaankaasi waxaana sidoo kale ciidanku hadda ay dul taagan yihiin ilaa dhowr iyo 50 meed ah oo ka tirsan qawaarta al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale dagaalkii maanta waxay ku soo furteen hub iyo sanado military oo ay ka carray nabadiidka sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in horjoogihii watay kooxda nabadiidka al-shabaab ee dagaalka ku soo qaaday deegaanka in barta lagu laayay ama halkaas lagu dilay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale
waxay hadda dhowr tuulo oo hoos yimaada deegaanka wargaadhi ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo baaritaana ah. xilligan oo idinla hadlayo xilli habeena waxay ciidanku kusii raad joogaan firxadka kooxdii soo weerartay deegaankaasi. argagixisada ayaa isku dayeysa mar kale in deegaanka ay soo weeraraan maadaama meydad aad u tiro badan ay ka yeelaan hareeraha magaalada wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ilaa 58 meydada ka reebay kooxda nabadiidka ah, waxayna kooxdu isku dayday ilaa muddo 4 jeer ah inay soo rogaal celiyaan si ay meydadkaas u jiitaan, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa jilbaha u dhigtay kooxdii nabadiidka ah ee soo weeraray halkaasi. ciidanka ayaa jilbaha u dhigtay kooxdii nabadiidka ah ee al-shabaab, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaan bacagta mariyeen ilaa 800 oo ka tirsan nabadiidka kuwaasoo maanta doonayay in deegaankaasi ay gacanta ku dhigaan. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xalay hore hayeen xogta ah weerarka nabadiidka ay ku soo qaadayaan deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku deegaanka oo si weyn uga feejigan weerarkaasi ay saaka ka hortageen kooxdii doonaysa inay deegaanku la weerarayaan. haatan idinla hadlayo oo xilli habeena waxaa socda duqeymo xoogan oo dhanka cirka ah oo ay wadaan dowladaha Soomaaliya ka taageera dhanka cirka, iyadoona la beegsanayo fariisimo nabadiidku ay ka soo abaabuleen weerarkii maanta ay ku soo qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe. duqeynta oo haatan ka soconaysa hareeraha deegaanka wargaadhi iyo tuulooyin ku dhow ayaa waxay wararku sheegayaan ama wararku tibaaxayaan in hubinka waaweyn ee gantaalada diyaaradaha ay ridayaan laga maqlay deegaanadaasi. mid ka mid ah dadka reer miyiga ah oo xiriir la sameynay ayaa wuxuu inoo sheegay kuna dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe khaasatan deegaano hoostaga wargaadhi in haatan ay arkayaan hubinka waaweyn ee gantaalada ay ridayaan diyaaradaha oo lagu beegsanayo fariisimaha kooxda nabadiidka al-shabaab ay ku leeyihiin halkaasi. waxaana sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaanba ay ku sii raad joogaan firxadka kooxdii soo weerartay deegaanka. haddaan sharaxaad guud aan ka bixiyo dagaalkii maanta wuxuu ahaa dagaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xogtiisa ay hayeen si feejigan ay uga hortageen kooxda nabadiidka ee al-shabaab. dagaalka oo qaatay muddo 6 saacadood ah ayaa waxaa ciidanku ay ku guuleysteen in guud ahaanba ay jabiyaan kooxdii soo weerartay deegaankaasi, waxaana sidoo kale duqeymo ba'an loo geystay kooxdii isla deegaanka soo weeraray iyadoona dhowr jihaac laga duqeeyay diyaaraduhuna ay ka duqeeyeen. waxaana halkaas looga dilay magaalada gudaheeda looga dilay ilaa 58 halka banaanka iyo hareeraha magaalada looga dilay ilaa 200 oo ka tirsan khawaarij al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay maanta dagaalkii ugu adkaa ay la galeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab. dagaalka oo ahaa dagaal ay si weyn u soo qorsheeyeen kooxda argagixisada ah ayaa waxay ciidanku ay ku guuleysteen in guud ahaanba ay cagta mariyaan dhowrkii goobood ee nabadiidku ee duulaanka ay ka soo qaadeen. xilligan aan idinla hadlayo waxaa deegaanka iyo hareerihiisa laga arkayaa qiiq iyo uuro aad u tiro badan oo ah gawaaridii laga gubay kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyo gaariga weynaa ee qaraxa ku soo xireen, waxaana ilaa haatan qiiqa weyn si weyn looga dareemaya ama uurada deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ama tuulooyin hoostaga deegaanka wargaadhi. dadka reer miyiga ah ayaa haatan inoo sheegay in ay arkayaan qiiq iyo uuro aad u tiro badan oo xilli habeena, waxaana qiiqan lagu sababeeyey gawaaridii waaweynada nabadiidku maanta ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka gubeen. gawaaridii la gubay waxaa ku jiray 2 gaari oo nooca BG-ga loo yaqaano oo nabadiidku ku soo rakabeen qaraxyo culus si ay ugu weeraraan saldhigyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka shabeellaha dhexe. dagaalkii maanta oo ahaa dagaal aad u culus ay ciidanku waxay jab xoogan ay ku gaarsiiyeen kooxaha khawaarij al-shabaab, waxayna ciidanku sidoo kale haatan ay gaaf wareegayaan guud ahaan deegaanadii nabadiidku maanta ay duulaanka ay ka soo qaadeen. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in deegaanka wargaadhi xilligan idinla hadlayay xalkeedu uu degan yahay, ciidankuna ay ku guuleysteen inay banaanka uga saaraan kooxdii nabadiidka ahayd ee soo weerartay halkaasi, waxaana jira khasaare xoogan oo la gaarsiiyey kooxda khawaarij al-shabaab. mid ka mid ah dadka ku dhaqan dhanka miyiga ah ee hoostaga deegaanka wargaadhi ayaa inoo xaqiijiyay inay indhihiisu ay qabanayeen ilaa dhowr gaari oo wada dhaawacyo ka tirsan argixisada al-shabaab iyo meydad kuwaasoo ay kala sii cararayeen goobta dagaalku ka socday. daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waan idiin soo tobin doonaa. fadlan hadduu janalkeenu kugu cusub yahay subscribe inoo sar waa mahadsantihiin.